السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تبارك وتعالى عاوي وحي كدن بي وحا رجينا إنا برتيدا يوتيوب كان إني كلا سعوسين دونا برنامج سعون دونا مدو كاسو أنا وقو مقعدري بدبادة قويسكا إلهي سبحانه وتعالى أيا وح بدباديو لكن تلوين كوناكسن إيو اسكو ديغا أيان هلكان إنكلا الوذاقي دونا بإذن الله تبارك وتعالى وحان رجينا إناد وحبضا كفائدة دونتان برامج كان sidaas la mid ah adinkuna inaad wax badan igu siyaadin doontaan waan filayaa waxaa horta isweydiin mudan awalan inaan ogaano waa maxay qoys haddii aynu qeexno qoys waxa uu ka kooban yahay hooyo aabo iyo ubad haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala qoyskaas ugu deeqo sidoo kale qoyska waxaa ka mid ahaan karo qaraabo ha ahaato mid fog iyo mid dhow intaba qoyska wanaagsan waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay beer iskuul ama xarun tababareed qoys kasta oo iskiisa u taagan waxa uu matalaa ama uu la macno yahay dowlad ama boqortooyo iskeed u madax bannaan sidaan ognahay dowlad kasta ama boqortooyo kasta iskeed u madax bannaan waxay leedahay cadow ama saaxiib sidaas la mid ah qoyskana waxa uu leeyahay cadow iyo saaxiib cadowga iyo saaxiibka waxay noqon karaan deriskaaga iyadoo midna uu noqon karo deris wanaagsan midna uu noqon karo deris xun marka aynu leenahay cadow waxaynu ula jeednaa wax kasta oo waxyeelayn kara qoyska si dadban iyo si toos ah midkii doontaba ahaatee qof kasta marka waxa laga maarmaan ah inuu ogaado qoyskiisa waxyaabaha soo wajihi karo oo dhibaatooyinka u horseedi karo waxaa laga maarmaan ah haddii aad ogaatid dhibaatooyinka kusoo wajahan qoyskaaga iyo waxyaabaha waxyeelada u geersan karo waxaa macquula ama suurtagal ah inaad yeelato gaashaan ama difaac aad kaga hortagto wax allaaliya wixii kusoo wajahan ama soo weerari kara qoyskaas wanaagsan intaasi waxay ahaayeen introduction waxa la yiraahdaa ama hordhac insha allahu tabaaraka wa tacaala faahfaahintooda iyo ayadoo qodobaysanna halkan ayaad kala soo doontaan haddii rabbi raali ka